doorashadii dadbanayd xaq darada ahayd intii la diiday tii xorta ahayd haddana la xanibay doorashadii dadbanayd lagama hadlin doorashadan 153 ay diiday midna uu ka aamusay dimuqraadinimada jirta caalamka westernku ay inagu harowsadaan marunba shacabka Soomaaliyeed bal yar baan buruflayn soo dhawaada dawladaha reer galbeedka doorashadii xorta iyo xalaasha ahayd ee xaq aan u lahaa ee la ii soo celiyay baarlamanku iga xadeen ay difaaci waayeen ay ii soo celiyeen in reer galbeed ka xanaaqo oo in loogu hanjabo waxaanu ka jaraynaa maalkii aan ku siinaynay war arintu wargafku weynaa soo dhawaada maxamed آسيا عبدي معارض محافظة هاو إن أبتدي باتهاي عبرتي باتهاي دماشيدي إن أبتدي أفر حبة ولا على إنه النهاي إن صومالي وصلت كي شرفتين ديجنتينا أما السلام عليكم لورن لها أما وصلت كي جانس إلهي إنه شرفتينا إذن سهلي إذ هرتها الله هرتها عوامادا reer galbeedku ay Soomaaliya siiyaan yaa cuna xalana inta joogto ba cuna bal ila wadaaga ninka hayow reer galbeedkaasi waxay inoo qabteen waxay ina yeeleen wiil ognahay jabhadaha kuwii sameeyay waa iyaga kuwii 77 xornimadii saqiirtay ee Soomaali galbeed aakhira inoo diray waa iyaga okay waxtarkooda bal ii soo qora ninka hayow intuu leeyahay malaayiinka Soomaali laga cafinayo soo dhawow sade Cabdi Sheekh soo dhawow malaayiinkan deynka Soomaali lagu leeyahay yaa geliyay hay'ado jooga Nairobi iyo hay'ado international yaa mushahar ku qaata tala yar baan siinayaa shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga Australia horta ma ku jirtaa wadamada ay noo hanjabay ii sheeg okay Mareykan iyo waxa uu daran Ingiriisi waa meesha Soomaalidu baan tahay labada shacabka Soomaaliyeed ee jooga mudaharaad waa in lagu sameeyaa taxi bayr ba tahay lacagtaadii iyo lacagtii shacabka Mareykan ama Ingiriis ayaa xalana lagu cunaa Soomaalina lagu burburinayaa shacabka Soomaaliyeed ee qurbaha joogow westernka aad joogtaan u sheegay inayna dimuqraadinimo ayna ka shaqeynay duminayaan waxaan dhowr jeer aan ku soo celceliyay safiirada Mareykanka iyo Ingiriis oo kuwa ugu awood badan ma ilaahay baa haddii ku xadgudbayaan in wax loo xiriyo ma shacabka Mareykanka waanu jecelnahay waan la noolahay wayna qaabileen laakiin markay dignity ku xadgudbayaan dawladdu iyo shacabku waa kala gaar ma kala tagayno dad baa noo haysaan laakiin dawladda waa in loo sheegaa tuugta meesha joogta ee lacagta taxi bayerka ku cuna shacabka lama siiyo maxay inoogu hanjabi lacagtan ay siiyaan waxa cuno uun hay'adahooda Soomaali waxaan leeyahay haynu qaadana sharafta oo safiir kasta oo halka joogo oo inoo hanjabay dalka ha laga saaro anu taasaan yaan ayidaya Bashiir soo dhawow Bashiir Cabdi soo dhawow waxa kale oon ka xumahay madaxweynayaashii dalka soo maray in xukuumadeenu dooranay Shariif iyo Sheekh Xasan oo maanta message diray shalayna ciidamadii ninkii afgembiga sameeyay lacagta u ballan qaaday waxa la yiraahdo in gubeendimadu reerkii tolkeen ahaa ee Bahawiye hal nin baan anigu helay oon dooranaya hadduu maanta soo sharaxo qorqor
مين نقاني مركو علي مركو اللي حسن شيخ مركو يدورن ما نقاني مين نقاني شريف مركو إن معمولي نيك قرقور ليلاهو هويو تجبرسي وأنا أدعي قرقور ما تهدو السوشيال رحمة الحوينة أنا سكان دورنا يعني أن نبضي يدلكي يلبكي يمؤامرة دي حسن شيخ كشقيي يركا بوليسكا ملايين الله بلان قاضي اللي جليي ويفشلنتي سنور شغيو اوكي وحانا كشقيي نبداس قرقور هذا بما ريال قرقور قبيل محو نوتري قبيل قرقور يا مانت الدنيا سو شرحي يا احمد مذوبه كان دورنا قرقور بان دورنا in badan baan hawiyo idin lahaa keensada dad tartanka gala ma kula talinaa shacabka Soomaaliyeed oo Maxamed soo dhawow Ibraahim soo dhawow qorqor inuu isu soo sharaxo oo inuu doorano si guusha bilaabantay ayna u burburin oo loo kala kaxaynin booliiskan iyo militarigan iyo systemkan heer hawiye ha dhamaystiraan qorqor ha dhamaystiree ورنيك اللي قور ما دورنا كل كهرباء مريحان كان ما نرهبي وحانو جاي خير كستو كانوا إلى الشر النقل كوي لهلان درانا قبل الله تذكر حيرك هوية كلية هي إساق إن يكون كدرين يهين الشر سعطتها أو في تنت الصومالي أو أنت الله إن يسبب يهين قبل الله إلى هي وافش لي maanta ninka Soomaaliga ah ee dooranaya ninka la deni ama deni ogol ama Axmed Madow ogol ee diida qorqoro aakhiro cadaabka Ilaahay wuxuu u samaystay abaal gud ma kaas haduuna jiri lahayn cadaabku ma jireen okay waxaan shacabka hawiye aan kula talinayaa Soomaaliyeed qorqor waan haynaa ninka la keenay ninkii Sheekh Xasan ee professorka ahaa kaasi ma natusaya wax khayr qaba in badan buu hadlay haduu natusaya wax khayr qaba soo fariiso daarodow idinku ma haysaanin natusa khayr oo doorano farmaajo waan erinabe Yasmin soo dhawow Yasmin ninkii aan jeclaaba ku saaran ee kay talo carabta ku soo kortay khayr soo dhawow en so far nin aan maanta farmaajo ku bedelanayo waan ku qasbanahay aan ku bedelanayo waxa jira qorqor iyo saddexda madaxweynaha ah saddexdaba waan dooranayaa tartanka soo galan leh en farmaajo waan ku taageersanahay inaad dawladaha reer galbeedka ee inaga soo horjeeday ee konton iyo saddex qod intii la qaaday saddex ay diiday ka soo horjeeda ee ka soo horjeedsan waaye doorashadii dadbanayd get out waa inaad bixisaa reer galbeedkum ilaahay baa qaxootiga noo soo celiyaan waa markii inoogu horeyso gobonimo waa marka aynu wax qabsanayno qiso hadda ka hor meel aan ku arkay ayaa waxaa marti ninba soo martiyaalay hal famil oo sacle sicii qisadii waa iga loo santahay sicii buu loo soo lisay caanihi baa la siiyey qisada sicii buu ka gowracay reerkii qisada ma hayo iminka dhowr sano ka bacdi ayuu soo martiyaalay reerkii oo beer tabcaday oo barwaaqoobay adeerow reer galbeedkan iyo xalanahani waa ka faqriga inaga dhigaya reer galbeedkan iyo xalanahan waa ka faqriga inaga dhigaya dignitigeena saan soo celino reerka diiday umada diiday dimuqraadi baan nahay 150 qof cod 3 qof ka dooratay iyo nin diiday iyo ninka aamus ka dooratay fursad baynu haynaa umada Soomaaliyeed ay magac bayna raacaya dad badan oo la gumaysto ba ina raacaya waa meesha shacbiyad ka helahay waa meesha shacabka Mareykanka ama Ingiriiskana aan tusi lahayn inay ka daabin munaafiqiin yihiin waxaan arkay safiirka Mareykanka oo la bedelayo aan malayn xeer jajabaad u sameysay farmaajo maadaama aad Mareykan ahayd maadaama malaayiin qof Soomaali ay joogan xeer jajabaad u sameysay ninka xeebteena muranka geliyay waa ninka
ragga Kenya hunguriga geliyay waa ragga nin kasto oo reer galbeeda oo ka soo horjeesaday 150kii waa in dalka laga saaraa waan ogahay Russia iyo China inayna si deep down una dhaqan inooga dhaxay dhul baan leenahay xoolaan leenahay bad baan leenahay saca laga gowracay qisadu ha noqoto saca ninkii ka gowracay okay intaynu noqono haynu kulli soo noqono noo soo celin shacabkana iyaga inoo baahan iyaga dan kale waxaad kaloo ugu hanjabtaa shirkad kasta oo u dirtaa shirkad kasta oo baadrool baaraysa oo western ku leeyahay get out waxaad ku bedeshaa shirkad Chinese iyo mid Russia okay waan ogahay xagga in laga la dheersan yahay Russia maxay noo jooga qaxooti waxba China maxay noo jooga waxba okay xagga nimankanaynu isdhax galnay nimankanaynu seediyaal noqonay nimankan haddayna marka iyaguna ixtiraamaynin annaguna ma ixtiraamayno Mareykanku wuxuu noo qaataa Yurubiyanku waxay noo qaataan dhulkeenay og yihiin inta batrool iyo nimca ku jirta abaal bay noo soo dhiganayaan waxa kale oo Sheekh Cabdiriis soo dhow Aadam soo dhow dadka soo dhaweeya waxaan dawladda ku taageerayaa oo waliba ku dhaleecaynaya Mareykanka safiirka la bedelayo in la bedela ma hayn wa xeer jajab uu sameeyay farmaajo waxa inuu Mareykanka soo kaga culus ma soo ka ugu weyn ma Mareykan haduu awood leeyahay coronavirus in wax ka qabto in la yidhaaho safiirka Mareykanka get out safiirka Europeanka get out si dibiga gowrac weysha ku qaasay Janis fiican banaysana adeero Soomaali baan nahay Ingiriis diyaaradii ugu horeeyay ku duqeeyay Soomaaliya ahayd si Cabdul Xasan Allahu naxariistay miyaan si diibnay okay si Cabdul Xasan wuu diibay haddaba isagoo inta taagtaale ayuu diyaarad ugu duqeeyay maanta inagoo intaan arkay awood leh batroolkeenu halkan saaran yahay Ingiriis wuxuu inaga qaadi ma jiro waa in laga saaraa dalka waa in loo sheegaa shacabkana in la yiraahdo shacabow waanu jecelnahay laakiin siyaasiyiinna ma bedelaysaa gumaysiga waa xalane gumaysiga waa in laga saaraa xalane dawladdii idab darradeyn weyda waa in calaaqaadka loo jaraa okay ninka Kenya hunguriga geliyay baddeena siiyay waa in la yiraahdo waa la bedelay ma waa in la اريا سودو بشير معارض يا محافظ هدونا هو احمد مذوبي iyo ninka la qorqor shalay baan ku soo wacay Bashir ho shalay ku soo wacay Ahmed Madoobe ninka dooranaya ee jecel u ka bangareynaya taariikhdu way qoraysaa waa sanadkii daarood gunnimada qaatay waxaan jeclahay nin kasta oo daarooda in Facebookiisa uu ku cadeeyo kulli kaga safarkayay inuu gobonnimada inuu qaato iyo inuu gunnimada qaato qorqor ayaa daarood ka matala ninka qorqor la yiraaho ayaa daarood ka matala inta sharafta leh inta gunta ana ilaahay wuxuu u samaystay cadaab ninka militariga hal baabi'iyo leh ninka xalana marti u noqonaya ajaanib ninka leh ilaahay baan ka bari inuu naga qabto si degdega habaarku waa nabca ilaahay waxaan ka bari nin kasta oo xalane marti u noqda iyo nin kasta oo dawladnimada ka soo horjeeda ilaahay inuu si degdega nooga qabto Mareykanka shacabka jooga Soomaaliya ama Yurubow mudaharaad waa inaad iclaamisaan oo tirahaan xoolaha taxi bayer baday adigoo Mareykan Soomaali kiima adoo Mareykan oo jooga oo taxi bayer qaata lacagtaada xalane lagu cuno lagu baabi'iyo waa inaad mudaharaad ka sameysaan waa in dawladda Mareykanka la tusaa ma doonayno waa inuu shacabku dagaalamaa ma aha farmaajo ma aha dawladdeena miskiinta ma aha in Ahmed Madoobe haystaan Puntland bay haystaan Muuse Biixi no waa in la muujiyaa shacabka Soomaaliyeed farqada baa mucaarad iyo muxaafid tani waa aaboy waa ahya Soomaali shacabka Soomaaliyeed guud iyo dibadda Muuse Biixi maanta waxaan ogahay hadii barnaamijka la hirgeliyo meesha ugu ficil badnaanaysa inay tahay Soomaaliland adeero waa maalinta sharafta ma qaadanaa shacabo
oo mudaharaad ma iclaamina aan kaga soo horjeedno dowladaha xalala jooga oo dhan out okay lacagtanada taxi bayarkan bixino baa dalkayga lagu burburiyaa jaalas ka wada haystaan nimanka hawiye la yidhaaho hawiyow jaanis baad haysataan 100 sano oo dambe siduu daarood idin caayayay inta xun aad caay doontaan oo idinla caay doono jaaniskan ka faa'iideysta hawiye nabad qaatay jecliya sharaf badana qurux badana qorqor nin kasta oo Soomaali u ducaynaya nin kasta oo Soomaali ayaa karahsan Axmed Madoobe iyo Dan hawiyo sharaftan qaata idinkoo madaxweyne soo maray inaad ka shaqayso in dagaal ka dhaco oo dil ka dhaco oo wiil aad ciidamada u maalgelisaan in uu dagaal qaado anigu waxaan leeyahay hawiyo waa istaqaanaa magaca daarood iyo hawiye iska dayno ninka hawiye ama ninka abgaal ama ninka habar gidiro dawladda maanta aad qorqoor ku leedahay ninka ugu haliyeysan maanta iyo ra'iisul wasaaraha in laga xigtaysto oo lagu kiciyo daarood doqon ha noqon jaanis baad haysataan nimanka abgaal nimanka habar gidir laba jeer baad jaanis يا مدحونا يا مرتين لبض جالس وإذا كهلاوي ما أنت هايستان هبل جديد يا مجرتين يا اللي الكسر يا درت اللي بيش هالدقن أنت إيريا الدقن شرفت الصوماليات ما أنت إذن كهين كره إذن كسؤال كره وإن كتخلصنا إلا إسعديان داراتكو وإن كتخلصنا ننكستو ولا شكي أو دارادا وإلا لإريا ninka aan cadeynayn raganimadiisa iyo wadanimadiisa waa in laga takhalusaa nimanka la yiraahdo habar gidir iyo mareexaan iyo leelkase iyo asharaafta meesha degan inta area iyo xitaa nimankii seediyaasha ahaa Saynab madaxweynuhu waa Saynab mursado madaxweyne saad ku heshaa okay saad ku socoto saad ku heshaa abgaal iyo habar gidir iyo majeerteen iyo ogaadeen xageed ku soo mari madaxweyne ma arkaysid jaaniska maanta haysataa Saynab madaxweyne xaaska madaxweynaha murusadow gabadhiina ceelina abgaal inta dawladda raacsan inta kale si easy loo qabanaya saddexdaanin labadaanin ee madaxweynaha ah ee soo maray ee doonaya inay xabadi dhacdo waa in la qabtaa oo la xidhaa haddii kale berri meel halista oo wax laga qaban karin ayay samaynayaan iyagana in la ilaaliyaba okay nimankaasi rajo ma soo wadaan okay abgaal isagoo saddex madaxweyne soo maray intaasoo dhiba samaynayo intaasoo mushkilada ciidankii u dhacay labadaa nin ee abgaal waa in la qabtaa waa in la xidhaa habargiir away raganimadaadii okay in badan baa dembi gashay dembigii Soomaali aad ka gashay حوالي الصومالي كجشي ما أنت هاي الدلبر سلو محمد سلو هبر جدير الدولة وإذنك شرفت وإذنك هو إذنك شرفت علمية أوكي طبعا أبقى البلمبا يا الدولة تاجرسن أوكي إسكاشة أو كتخلصة لبضانين المدحوينها الصومري أوكي وأنمن كين يبسدي وأنمن كل أجادي ناس صومران حلنا ولا كتخلصها الدارات كا وحلاها هاي ولي ما أرق الأضيال دارود هو بدن أو تاجري ما أرق دارود هاشمر بيحلى حديث سيده هوية التاجري هداد أضيال شيء نقنات كالتاجري ويدان سومالي لان إذا كقدران أو دونية إن أي بنت لان قاضي ناس كدارود نهو جامين يو Puntland joogo waxaad u oleynaysaa inaad waxa doonayso aad hesho hadaad weydayna inaad tira waan go'aya maanta aad qabashaleedihiin gobonimadu maanta ay qarka idin saaran tahay dani ma ka takhalusaysaan farmaajo iyo dawladdu waxaan leeyahay farmaajo hadii 4 sano hadii labada sano ka xanaaqsanahay هذا الشرعيين سان إلى الصومالي بيننا أفرتي سنة اللي ودورتي يا خساري
waxaa khasaariyey deni iyo axmed madoobe iyo nimankaa hawiye 4 sano doortay dadka le farmaajo muunan marka hore wuxuu oranayay maana ku ceshanayo war muxuu ku ceshan ha ma oran bee ruuxa marka la shaqeeyo ee la caawiyo ayaa loo tirinaya 4 sano miyaa la shaqeeyay Puntland iyo Jubbaland iyo nimankan reer unuka inta meeshu xidho way furayeen okay 4 sano ee layn doortay inaad dib u saxaabahay waxaan uga dan leeyahay 2 sano nimankii way joogaan doorasho ma lagu diyaarin karaa okay waa in laga takhalusaa Puntland iyo Jubbaland waa in laga takhalusaa haddii kale 2 sano waa lugooyo haddaanan balaan haynin reer Puntland iyo reer Jubbaland haddaynan balaan hayn labada reer abgaal in laga takhaluso haddaynan balaan hayn 2 san beelaan aad noqonaysaan waxba kuma qabanaysaan 4 sanaad ku qaban weeyeen anigu waxaan iminka way dhacday laakiin meesha 2 sano aad saxdeen 4 sano inaad ka dhigtaan bay ahayd ama condition haddii loo wada shaqeeyo daacad loo noqdo haddii dawladda daacad u tahay oo inay gobollada daacad u ahayn 2 sano ma keenayaan okay waxaan leeyahay farmaajo balaan ma haysaa nimankaa in laga takhaluso xiliyo ma haysaa nimankaa abgaal in la xidho ma haysaa balaan nidaam ma haysaa oo ma ka shaqayn oo shacabka ma adeegsan Puntland iyo Jubbaland ka takhaluso deni iyo way ku hirgeli haddaadan balaan haynin shacabka beenaha u sheegay 2 sano waxba ma qaban kartid okay anna waan kuu sheegoo khayr kasta oo samayso shar bay u tahay hawiye inta xun iyo isaaq iyo kablaalax mar sidaa darteed baan jeclahay nin daarooda nin hawiye kala ama nin kablaalax kala ama nin isaaq ama nin raxweyne inaan helo horta ninkaa tig baan siiyey farmaajo ninkaa baasha ma ku wareejinaa ninkaas intuu doorasho soo sharaxo ma ku wareejinaa sharaftan hasi dhamaystire okay oo ma ka nasan okay ama shacabka daarood iyo shacabka hawiye xalaasha way ku raacsan yihiin talaabo qaad ka takhallus nimanka adeerow mahmahba hore u ahayd xukun jilicsan iyo xeerka qoyska jilicsan labaduba waa maxay dhaha siyaad barakuma ma aan calisay xukunkaagu meelu jilicsan yahay duruufta keenaysa adeerow waa socon shul iyo shil nimanka ka takhallus anu dilku ma lihi xig okay annaguna han kala baxno haddaan la kabla laxe han kala baxno shacabku u ciilan yahay shacabka Jubbaland joogay ee kablaalax u ciilan yahay ee daarood u ciilan yahay aduu ku taageersan bahasha adeerow raganimada cadayso axmed madoobe iyo deni ka takhallus bal han ogaana inta raacsan iyo inta raacsanay anu dilku mali haddii kale 2 sano waxba ku tarmayso waxaa kale oon leeyahay barnaamijkan 4 point waa midka ina kharibay Ethiopia waa qoomiyado way ku habboon tahay sharciga isteedooda laakiin Soomaaliya si Ethiopia loo simo ayaa qoomiyadihii 12 ahaa ee Ethiopia isku diinta ahayn isku dhaqanka ahayn isku kalarka ahayn iyo Soomaali oo isku dhaqan isku diina ayaa waxa la yiri waxa has projectaya ana qoomiyadii Tigray waxa la siman daaroodki ama mareexaanki la siman hadda waa qoomiyadii u dhigmaysay Soomaali arrintan waa ina gubeennimo lagama baxayo arrintan waa in la beddelaa baarlamanku waa inuu arrintan beddelaa 4.5 kan absolutely meel u gaari maayo kuwa badan oo Puntland jecel kuwa badan oo qabiilaha Landeers ka dhiga jecel pointiga ina gubeedka inaga dhigay waa pointigan waa in laga takhalusaa ma yanfac Landeeruhu waxa weeyaan ninka ragga ah okay waxa aynu qoortu u surnaanaynaa nin laangaab ah aqliga laangaabka oo caloosha laangaabka oo Landeerana hayle maxay ka faa'iiday Puntland intii kooyo asaga sano ama 30 sano yaa la doortaa hal famil baa soo sharax haddana halka famil u baa federaalka kursi ka raadiya ma qaf famil baa degan Puntland okay hal famil waa boqortooyo
marka ninka Soomaaliga oo halka ku qusqaado ninka Maxamuud Salaamaan baa Puntland iska sharaxa federaalka iska sharaxa adu xaq u malihi muwaadinti marka inta kale waa gun bointigani gun buu laga dhigay okay imika Soomaali galbeed boqolkiiba 99 ogaadeen ma doorana oo ku qasbanahay okay hadaba goorma ninka raga waa ninka ugu yar hadiiba ninkii laandaraha aynan aqliba u ku yar yahay daacad ay ku yar tahay okay ninkii laangaabkaana daacadnimadii iyo raganimadii geesida ka buuxdo goorma doorana orbaasha waa inaynu ku dooranaa raganimo waa inaan ku qasbanaado laandere waa inu gubad laandere inaan daba socdo waa inu gubad okay laandeerahan waan fahmi waayay okay daarood soo soco kablalax soo soco yalla waxaan han ka takhalusno marka waxaan leeyahay barnaamijkan 4.5 ka waa in laga takhalusaa ilaa oo ka laga takhaluso guul ma gaarayno intaas aan soo galay dawladaha inaga soo horjeeda waa in laga saaraa wadanka adiga iyaga ka jecel lacagta iyaga cunaya maxay ku siiyaan waa in laga takhalusaa barnaamijkana markaas la kala ogaan meeqa dawladda adduunka jirta ma inta European-ka kaliya ayaa dawladii kale okay Africa jirto Arabba jirto wayna taageerayaan marka si raganimo leh oo geesinimo leh waa in la yiraahdo out raashkana iyo Chinese-kana shirkadihii ay European-ku lahaayeen dhan waa laga saaraa waa in la yiraahdo garaw wallahi iyaga ina bariya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.